kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo. nin weyn oo shabaab ah ayaa xalay waxaa lagu dilay jubbada dhexe meel lagu magacaabay in ay tahay xaramka. wuxuu ahaa ninkan nin aada loo doondoonaya, madaxiisana waxaa taalay lacag 3 milyan. waxaa kaloo ka horreeyay oo duqeynta lagu dilay wiil uu dhalay xasan daahir aweys, kaas oo xalayba aan ka hadalay. hase ahaatee weli shiki waxaa soo baxaya wiilka xasan daahir aweys in uu shabaabka ka tirsanaa iyo in uu ahaa shacab lagu khaldamay. waxaa kaloo qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan magaalada beledweyne ayaa gaadhiyaal lagu soo rakibay qaraxyo waaweyn ayaa xerada lamagalay lala eegtay, meeshaana khasaare iyo dhaawac ayaa laga soo sheegaya. waxaa kaloo qodobada wararkeena ku jira isla magaalada beledweyne dusheeda meel aan kasii dheerayn ayaa ururka al-shabaab oo halkaas isku urursanaya ciidamada dowladda iyo maxawsiyada ka warhereen weerar xooganna way ku qaadeen. dagaal xun ayaa meesha ka dhacay, ururka al-shabaabna meesha jab xoogan ayaa loogu geystay. waxaa qodobada wararkeena faahfaahin doona ishana ku hayay saaxiibkii cabdi soo dhawow. waxaa la dilay nin weyn oo shabaab ah. dowladdu waxay sheegtay inay farxaan qaroole loogu aaray dagaal xun oo ballaaran oo gees to gees hadda shabaab lagu wadaa. maxaad war ka haysaa ninka la dilay? mahado horta waa mahadsan tahay. dagaalada ka jira Soomaaliya way soo xoogeysanayaan, qaraxyada way soo xoogeysanayaan, gantaalada way soo xoogeysanayaan. marka shacabka iyo dowladda isku dhinac ah iyo shabaab faraha is saarayaan. waxaa la dilay wiil oo dhalay xasan daahir aweys, waxaana la sheegay inuu bara jaamacadeed oo ka ahaa jaamacadda muqdisho. waxaana lagu dilay shabeellaha hoose asagoo beertiisa joogo sida wararka nagu soo gaarayaan. dadka qaar shaki ayay gelinayaan, waxay leeyihin ururka al-shabaab ka tirsanaa, laakiin taas xaqiiqo uma hayno, caddeynna uma hayno. taas haddaan ka gudubno, waxaa la dilay nin la yiraahdo ninkii lagu bedeli lahaa axmed abu cubeyd ama axmed diiriye, ninka ugu sarreeya ururka al-shabaab ninka lagu bedeli lahaa oo la yirahdo cabdullaahi nadiir ayaa qarax lagu dilay deegaanka xaramka. ninkaasi wuxuu ahaa xubin weyn, mar wuxuu noqday ururka al-shabaab ninka u qaabilsan warfaafinta, mar wuxuu waaye ishag waa dhakhtar, nin oo dhakhtar ah, mar wuxuu yahay howlgallada guud ee ururka al-shabaab. marka waa aas-aasihii ururka al-shabaab, haddana ah ninka dhaxal sugaha ah oo kolba dhaxal ayay iska sugayaan oo ninka abu cubeyda boos ka bedeli doona waay. waxay saaxiib dhow ahaayeen ninkii hore oo la dhihi jiray axmed godone oo asagana gantaal lagu dilay. marka xalay deegaanka xaramka ayaa lagu dilay gantaal. dowladda federaalk Soomaaliya ayaana caddeysay, horeyna waxay u sheegeen in farxan qarool u argudi doonaan. marka wararka way soo tarayaan. ninka xasdaar aweys wiilkiisa iyo ninkan isku meel laguma dilin mahadow, laba meeloo kala duwan ayaa lagu dilay. maalin dhaweytana caldheere iyo qoorgaab nin la yirahdo asagana la dilay, caldheere oo dhaawacmay, ayagana waxaa lagu beegsaday shabeellaha dhexe. marka howlgalka iyo qaraxyada way socdaan, dagaaladu way socdaan, gantaaladu way socdaan. diyaaradaha turkiga iyo oo duuriyaha lahayn oo droniska iyo waxaa kusoo biray kuwa mareenka droniska, ayagana waxba duqeynayo. beryahan duqeyntu waa saayid mahadow. xalay ninka la dilay waa nin ay waxay leeyihin dadka shacabka ama dowladdu waxay leedahay waa nin u qalma loogana samri karo farxaan qaroole oo lagu dilay qarax. inkastoo farxaan qaroole dilkiisa shiki weyn laga muujin haya, uuna ahaa nin aad u tababaran, siraha shabaab iyo tabaha ay dhigana aad u yaqaanay ahaa, kana feejignaa ciidan xoogana watay. nin isku halayn karan uunsa ahayn meel aan lagu baadhin oo ciidamadu ay gadaal iyo horba ka yaacahayeen inay asagii qarax lala beegsaday xoogow shiki inkastoo la muujinayo. laakiinse waxaa la leeyahay ninkan waa nin weyn oo shabaab ahoo ragga ugu waaweyn ah. ninkaas dowladdu waxay leedahay in uu u qalmo, shabaabna ay xanuujinayso dilkiisa. intaa haddii aan ka tagno ururka al-shabaab, dagaal xun baa cabdi ku socda oo gees to gees ay shacabka Soomaaliyeed sa ugu qaadeen macal dowladdii iyo saaxiibadooda kale caalamka isgarab yaacayaan oo nimanka lagu qaaday. hadda ragga ugu sarreeya hadda caldheere waa dhaawac ba laleeyahay. saaxiibkii kale ninkii kale qorgaab asagana waa dhintaa laleeyahay. mid sarreeyo hadda weyn hadda wuu dhintay oo waa kan oo ninkii xilkii inuu la wareega la rabay asagana waa dhintay. jab xoogan baa lagu wada, ayagana jab bay geysanayaan. sidan haddii lagu wado shabaab waa laga rayn baan dhihi karnaa, soo ma ah. mahadow aad iyo aad horta saan hadday ku socoto waa la kala bixi doonaa. guulo fara badan ayayna ciidamada macusley iyo dowladda federaalk Soomaaliya soo hoynayaan, ayagoo kaalmo ka helaya dowladda Mareykanka iyo dowladda Turkiga, kuwaasoo duqeyn fara badan ka geysanaya Soomaaliya. marka ururka al-shabaab mahadow waxaa la yiri waxay soo dirsadeen codsi ah inay dagaalka laga joojiyo, ayaguna ay ka wareegi doonaan deegaanka dhulka hawiye oo ah shabeellaha dhexe, hiiraan oo dhan ilaa iyo galguduud inay kasoo bixi doonaan, ay usoo wareegi doonaan dhankan Ibaay, Bokool iyo Jubbooyinka. waxay codsadeen in 2 bilood la siiyo jaanis ah si ay uga soo dhamaadaan dhankaas. marka waxay leeyihiin
in canshuurta aan ka qaadno dadka muqdisho joogo shaqo kuma leediin faraha naga qaada 2 biloodna hana la siiyo dhulkaas dhanna waa kasoo baxaynaa hadhowna macawisleyda anaga aysan soo weerarin marka odayaashii deegaanka warkaas way diideen waxaana dhaheen anaga idinku waa noo xabad nabadoonadiina ayaa leyseen ilmaheena ayaa leyseen qaraxyo ayaa nagu wadaan wax isxaan oo naga dhexeeya malaha marka codsigaas soo gudbisteen waana laga diiday dagaalkan wuu ku socdaa duqeyntan ku socotaa xaalka al-shabaab waxaa dhihi karnaa bilooyinka ama maalmaha soo socdo waa isku dhammaad mahadow okay qodobka halka haddii aan kaga sii gudubno oo isla shabaabkii aan sii dhexyaacno xasan sheekh maxamuud wuxuu afkiisa ka sheegay dadka shabaabka ee laqa qabtay inaan laygu imaan karin oo wasiir igu imaan karin oo xildhibaan igu imaan karin oo uwaas igu imaan karin oo nabadoon igu imaan karin oo faraha lagala baxo dadka shabaab daba ordahay meeshaas waxaa ka muuqata shabaab badan oo lasoo qabtay inay dadku ay magacyo kaloo bedelan u raadinayeen dembiile la-aan weeye walaalkaane ay dhihi jireen ay u raadin jireen xasan sheekh maxamuudna arrintaa ayadaa darad si kulbuu qabriga farxaan qaroole dushiisa oga hadlay wuuna ka diiday inay mar dambe nin la qabtay in la dhaho kuma jirin iyo waxa ma ahayn maxkamadda keliya inay faraha looga qadiyo xeer ilaalinta waxay soo saaran in lagu qanacsanayuu dhahay hadalka xasan sheekh maxamuud ee adkaa sidaad u aragtaa wallaahi mahado horta hadalkaas wax badan iska bedelay asagoo qiireysan oo dilka farxaan qaroole ka qiireysan oo weliba ilmeynaya ayuu xasan maxamuud go-aan ku gaaray ninkii shabaab lasoo xiro kadaba yimaado waa shabaab oo dhahay marka hadalkaas wax badan ayuu saameeyey maalin dhaweeta gudoomiyaha gobolka banaadir waatoo dhahay gurigii lagu arko ururka al-shabaab ma qarax lagu arka ama hub lagu arko waa lala wareegaa shalay waxaa dhacday in 5 guri lala wareego oo ku kala yaala deegaanka yakshiid hilwa iyo oodweyne xaafadda oodweyne degmada daniel ka tirsan intaasba waxaa lagala wareegay 5 guri dadkii oo guryahaas lahaayahna waa lagu daray marka xaaladdu waa adag tahay meel xun ayay maraysaa qofka shabaab siiyo dhaqaalahana waa lagu dhagan yahay qofka gurigiisa qarax ama nin shabaab ka kareeyna waa lagu dhagan yahay guryihiina waa lala wareegaa marka xasan maxamuud waxaa u malaysaa inuu soo jeestay waxaana la dhihi karaa 30 sano oo lasoo dhaafay ninka u soo jeestay shabaab inuu meel iska saaro xasan maxamuud ayaa la dhihi karaa mahado dowladdu shaqo aad u wanaagsan ayay haysaa xasan sheekh maxamuudna nin kasta waxbuu kusoo caanbaxaa farmaajo dadka shacabka qulubtooda wuxuu ku dalbaday soo jiidasho kale iyo ciidan la tababaro iyo dhaqaalaha ciidanka kor loo qaaday iyo wadanka soomaaliya faragelinta ku hayay oo banaanka iska saaray taasaa taageero weyn uu ku helay xasan sheekh maxamuudna maanta waxay u muuqataa in uu shabaab asagana dagaalka uu ku wada taageero weyn ku heli doono oo ammaan uu halkaa uu ku heli doono qodobka intaan halka haddii aan hal midaan kugu daraa mahdow xasan maxamuud waqtigiisii hadda ninkan oo la duqeeyey waa nin xubin weyn ahaa mogta waqtigii oo asaga uu joogayna waxaa la dilay axmed godane marka xasan maxamuud taariikh weyn oo ururka al-shabaab ay ku leeyihiin waana ninay necab yihiin ha xasan sheekh maxamuud uu la dagaalamaa halkaas haddii aan kaga baxno qodobkeena waxaan aadaynaa dhinaca beledweyne saaka qarax baa ka dhacay korkiisana dagaal baa ka dhacay maxaad ka haysaa ayagu horta mahdow xerada lamagalaay oo ah xafiisyada dowladda hirshabelle ay ku maamusho macnaha ay ku yaalaan xerada lamagalaay ayaa weerar lagu qaaday 2 gaari oo ismidaamise ayaana galay dad fara badan oo ciidamo iyo shacab iyo dadkii meesha wax u doontay iyo xafiisyada tagay ku dhintay hadda gurmadka wuu socdaa xerada xaalkeeda waa cirka labadaas qarax waaweynana ka dhacday marka heer hiiraan iyo al-shabaab meesha kala joogan waa la ogyahay xaaladda meesha maraysana waa la ogyahay xerada lamagalaay dhowr jeer qaraxyada ka dhaceen haddana maanta 2 qarax ka dhacay xaalka halkaasna waa weli wuu kacsan yahay dadka dhintay ma xaqiijin karno xaaladoo kacsan aageed iyo waqtiga wax dhaceen oo mar dhow ah marka waxaa kaloo ayadana jirto dagaal ayaa wuxuu ka dhacay duleedka beledweyne meel la yiraahdo shiile guduud oo ay ururka al-shabaab ay fariisin ka sameysteen xarun ay ku lahaayeen ayaa waxaa weerar ku qaaday dowladda federaalka soomaaliya iyo macawisleyda halkaas ay dagaal ba-an ka dhacay saakay ugu dambeyntiina ururka al-shabaab meesha waa laga saaray jab xoogan ayaana loo gaarsiiyey si dowladda hirshabelle ay soo sheegtay taliyaasha ciidamada hogaaminayana ay ka hadleen halkaas guul ayay ku sheegteen deegaankina waa laga qabsaday marka xaalka soomaaliya halkaas ayuu maraya mahdow kuwaasi waxaan qodobada wararkeennay oon ku falanqeynaynay ururka al-shabaab iyo dhibaatada dadka shacabka ee soomaaliyeed uu beryahan uu ku hayo iyo ayaga oo dagaal xoogan lagu wado macawisley iyo dowladda iskaashanaya dhammaantood ay dagaal xoogan ku wadano jabna loo geysay hadda madaxdoodana la laynhayo kheerta hawada nagala socotay meel kasta joogtaan saasiyo nabadgelyo